Soomaalida arooskoogu maxaanu maalin kaliya tawahay nala daawo muuqaalkan sida jawaabta ogaata marka uu dhamaado nikaaxu ama ha noqdo mid uu qabtay sheekh ama macduum sudhaaba kadib waxa bilaabanta xafladii meherka si toos ah oo ka dambaysa maalinta nikaaxa waana munaasabad degan marka loo eego ama lagu qiyaaso maalinta arooska maalinta maxaa u gaar ah oo la qabtaa habeenka aroosku si rasmi ah wuxuu ugu hadiyadeeyaa oo ugu xiraa aroosadiisa dahab kadibna waxaanu diyaar garownaa habeenkii xinnada waa habeen loogu talagalay haweenkeeda habeenka aroosada ayaa lagu qorxiyaa xinno gacmaha iyo lugaha tiyoo la qaadanayo jawiyad music iyo farxad iyo qosol ah then waxa ku xiga habeenkii weynaa maalintii ugu qurux badnayd ee arooska waana maalinta ay ummadda Soomaaliyeed la mid tahay ummadda caalamka farxadooda aroosadu waxay soo gashaa iyadoo xiran taajkii cadda iyada iyo hablahan xiisadaha ee la socda iyagoo xiran dhar isku wada eeg oo kala qurux badan dabeetana waxa bilaabma barnaamijkii ahaa ciyaar iyo heeso iyo music waxaana lagu soo gabagabeeyay arooska quraanba waana maanso lagu amaano aroosada iyo arooskaba qabiilkooda iyo qoyska ay ka soo baxeen la wadaag muuqaalkan kabalka aroosanaya sanadka